السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال si walba muuqaalka iyagu idin soo gaaray meel kasto dunidan aan ku noolahay aad kaga sugantihiin ba ku soo dhawaada barnaamijka doorka ama kaalinta aqoonyahanka oo si toos ah idinkaga imaanay stuudiyaha telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho toddobaadkan waxa aan ku falanqeynaynaa buug uu qoray mahadiha ka gaadhay Dr. Ali Sheekh Abu Bakar ama Dr. Ali Sheekh oo kamid ah aqoonyahanada waaweyn dabcan dalka Soomaaliya ahana gudoomiye hore ee jaamacadda Muqdisho sidoo kalena xilligan ah hogaamiyaha hay'adda bariga Afrika ee cilmi baarista iyo horumarinta ee loo soo gaabiyo dad dabcan falanqaynta guud buugaas oo 24 saac la soo dhaafay aha hadalhayntii ugu badnayd magaalada Muqdisho ee xilligan aan ku sugannahay ayaan ugu talagalay in bulshada Soomaaliyeed aan wixii laga gaari karo aan ugu falanqeyno intii aan jaaniska u heli karin inay ka faa'iideystaan bal si guud buugga iyo macluumaadka uu xambaarsan yahay maadaama uu doctorku uu qoray oo aan jaanis u helay inaan muqaabalo ama wareysi aan la yeelano bal yaan ku faaqideena wixii Ilaahay inaga garansiiyo macluumaadka buugga ku dhex jira Dr. Ali ku soo dhawow Kalsan TV وأكسلوها عادي أدل ما سنتين كلاس تي في. دكتور علي هذا ما حسن وح أفر لبعتين كساعة يلا صار في هذا الحين وجوب بدن الجبل كبنادر مع عاصمة المقدسة هي هيد بوك خصوصا بنكتي بوجاكتي أما بنيجي بوك فير كبنادر كان عاي مجرد المقدسة طبعا بوجاسي وعضو بحسي وصحامي أظن فرين معلومات kala duwan ay ku qoran yihiin bal buugaas iyo si guud sida fikirkiisu uu ku yimid maadaama oo erayga koobaad uu xambaarsan yahay uu yahay eray cajiib ah aad baad uma santika TV wa runha waa fursad aad u fiican ay tahay anigana taban magaca buuga usahami adoon ranin ama usahmi adoon ranin waa laba lahjo oo afka Soomaaliga gobolada kala duwan lagu kala hadlo marka isma diidayaan dadku inay soo ogaadaan ma raba runahan buugan gabay ku jira isaga maase ku jirta ayaa la yiraahdaa usahami adoon ranin oo runahan tilmaamaysa dadka raba inay wax qabsadaan ama noloshooda bedelaan ama ay meel fog u socdaan ee himilooyinka dhaadheer leh ayaa dadkaas ayaa waxa laga rabaa inay aad uga fikiraan waxay qabanayaan oo meesha u socdaan ruuxu isagoo huba oo maabkiisii wata inuu ku dhaqaaqo marka hawshu rabo marka waxa weeye hadii af Carabiga lagu yiraahdana الرياضة اللي هذا سهنك أبقى إنجليزك أنا وحاول أدو يهاي بلانيك أو كلا يودو يهاي يعني واحد تقليديو رير كمركب ميل ودقية هاي صومالية أو رماشاس رير كحماتو أيا واحد اللي هذا رير كوهالله سهميو ماشى ميل كفي عم بالرادين أيا رير جوراجا ويه لكن هدنا وقف صومالي قدام بوح وكسم يسيه هاي أفكار نحولها يبيرها يبضع يكسم يسيه سادرة ديد سهنكم مركب حاوي عيدا كاله وحول باللو أديك سدا لكن أصل كيسة رير ميل دجن وعبارة كل عضي أما ميل حوله كجر هذا دجن إن لجرره وميل كون عشان لوره مجو سداس أيو كسم يسيه هاي هيسكت دقائقنا أديكه هو ماشى أسعته هاوش بالله سداس أيال جودا بوق الدكتور كوساب بندقي وبوقن طبعا سدا شاشة إذا كم وقت عوان كيسن ويا هاي أسهامي أذون رارين طبعا تضيع كردوان أيو ككوبين يهاي إلا يتضبط يا something topic أيا جودها وجرو سجود نوحنا ملاين إنه يهاي لباب بقول iyo 8 page طبعا معلومات kala duwan oo intii aan waqtiga aan ka gaarnay inoo saamaxo aan ku faaqidi doono bal buugan iyo dabcan macluumaadka guud uu xambaarsan yahay iyo fikradii kugu dhalisay inaad bal aad buugaas qorto ama aad ciwaankaas qaadato طبعا معلوم buugan suu u sameeyay yahay sida loo sheegay oo walaalkeen u sheegay waxa uu ka sameeyay yahay hadda inta meesha ku jirta waa 7 maanso ama gabay ama geeraar wixii la yiraahdo runahan waqtiyaal kala duwan iyo munaasabaad kala duwan ayuuna ku yimid
oo dalka run ahaan 30 sano hadda ugu dambeysay maadaama dalka aan ka shaqeynayay Soomaaliya iyo geeska Afrika ba meelo badan oo ka tirsan oo dadka Soomaaliya ay degan yihiin munaasabaad kala duwan ayuu ku yimid waxa dhigata anoo taayira saaran inay qaarigu dhasheen waxa dhigata caruur waxaan xusuustaa qaarkii anigoo jooga Azerbaijan caruur aad u labisan oo qoslayso ciid joogta marka arkaan caruur Soomaaliya soo xusuusto ay meesha iga soo dhacaysaa waxa dhigi karta qaar kale inay ugu soo dhaceen anigoo jooga Kampala oo arday jaamacadda Muqdisho oo 40 arday oo master u tagay meesha aan yaabay oo jaamacaddu kolkaas ay jirtay 10 iyo dhowr sano gabaygu marka siyaas igu soo dhacay waxa dariiqa Muqdisho aan socday inaan ilmo aan iskuul aadaynin maalin iskuul furan yahay inaan arko oo marka aan ka xanuunsado inaan arko mesela Dadaab oo kale mar aan tagay maamooyinka ka soo qaxay dalka Kismaayo iyo hareerihiisa iyo dhulka Soomaaliya ka soo qaxay marka aragtay inay maamadaasi kugu soo rido xanuun gaar ah run ahaan waxa kugu soo ridaya xanuunka wax badan oo faraxana tabcan waxa kugu soo ridaya marka hawl fiican aad qabato run ahaan kitaab wuxuu ka sameeysan yahay waxbarashada xoog ayuu saaraya wuxuu xoog saaraya oo kale danta guud in laga shaqeeyo oo ruuxna danaysta gaar ah noqonin yaad kaashanaysaa gabay baa ku jira inaadan kaliya iska soconin oo tacaawun al birri wanaaga in la iska kaalmaysto ay asal u tahay waxa qayb muhiim ka ah dumarka oo run ahaan guurkooda iyo dhaqanka iyo caruurta iyo maamada iyo qoyska sida u dhaqmayaan oo dhan iyo qayb hadana uu ka yahay saas marka loo fiiriyo waxa aad ugu jira marka la yiraahdo siyaasadda iyo in la toosiyo oo dad farsamo yaqaan oo aqoon yaqaan ay ummadda hogaamiyaan yaa ku jirta taban waxa ku jira waxyaalo xanuun leh sida mesela ila dumi walaalow dalka yani anu waa duminayaayo dalka ana iska leh ila dumi yani wax la yaab la waaye dugaag daris ma leeyahay ayaa kamida toobiyada ku jira runaha wax badan oo waxa ku jira marka xanuun leh oo dhila xambaarsan runaha waxaasna waxay cabirayaan sida dadku dhibta dalka ka jirtay dagaalkii weynaana uu keenay iyo dib u dhac weyn ee qabno runahaan qayb kamida runahaan ayuu cabirayaa marka la isu duubo kitaabku waxaan aan isleeyahay hawl aan qaybna ka ahaan qaybna aan jeclaan lahaa inaan qabto ayuu ku salaysan yahay raja abuurka ayaa ugu weyn taban dhalinyarada si xoog leh ay ugu jirtaa runahaan oo runahaan dood wadaag ka ugu dheero 360 ilaa 70 meelaha ku dhow dhalinyarada dhalin iyo dhulkeedii baa la yiraahdaa waa qayb aad iyo aad muhiim ah waxa kamid ah xorriyada oo kale dooday maxaa tahay oo afka inta la iska xidho dhalinyarada ma hadli kartaa la yiraahdo waxaan ana fahamsanay odaygu uu leeyahay iska dhaaf adigu carruur baa tahay ninkii oo 20 sano gabadhii wiilkoo dhaafay ama 30 jira ama 40 jira ayuu leeyahay maxaad ogtahay adiga waxba ogida iska aamus marka dictatornimada meesha ka dhalatana waa meesha isku ururiyo marka raja abuur xoog leh iyo dadka xorriyo in loo furo oo dictatoriyada laga dhaafo waxna la barto run ahaan cadaalana ay hogaamiso dalka kitaabku markaad guud ahaan fiiriso sidaas ayuu ku saabsan yahay marka guurka aan ka hadlayno kale madnaada khudba sira ma guurba oo kale yani waa mowduuc aad iyo aad run ahaan aan ugu rafo waxyaabihii markaad soo bandhigaysay waxa sacabka ugu badlo ka dhasho kamid ahaa iyo kamid ahaa waxa jira gabdhaha run ahaan guurka dib guur geer meel badan buu guurkeenu ka hadlaysan yahay meel badan uu ka fiican yahay meelaha dhibta keenay marka kamid tahay waa u gudbi doonaa in short waxaan u fahmay in caqabado dabcan taagan ayuu xal u yahay sidaas aan ugu tala galay aanu inaan dadka naseexadayda wax ila tahay ee ila quman inaan u gudbiyo ayay sidaas taban inaan soo ururiyo taban kitaabka wixii gabayha aniga hadda aan sameeyo kulliga kuma dhanna laakiin waxaan goosay inuu san aad u sii weynaanin marka qaybta ugu horeysay aan hadda soo ururiyo way qaybta labaad oo imaan doonta hadii dabcan toobiyada aniga aad ka soo jeetay ku jira boogga intii aan akhrinayay dabcan waan wada akhriyay waxa kamida toobig uu ciwaankiisu yahay raad wanaagsan sii reeb oo dabcan fikradaha ku jira kamid ah bal raad wanaagsan sii reeb in badan oo kamid ah waxa laga yaabaa in dadka ina daawanaya ama xilligan joogo ama dadka buugga gadan doona inay dhalinyaro u badan yihiin cilmiyaadkan aysan fahansanin iyo madmuunka uu xambaarsan yahay
run ahaan munaasabadaasi gabaygan dabcan Kambala ayuu igu soo dhacay hotel Kambala anoo joogo shir weyn oo jaamacaadka ay leeyihiin caalamku in ka mid yahay ayaan waxaan arday waxaa joogtay aad u badan oo jaamacadda Muqdisho ah ka baxay oo markii aan ardada Soomaali oo ugu badan aan u jeediyay muxaadaro guud ayaa waxay dhaheen annaga waxaan nahay ilaa 40 konton baan nahay waxaan rabnaa inaad muxaadara inaan kula khaas kula yeelano hotelkii baan ku sugaayay hotelkii markaan ku sugaayay ayaa waxaa igu soo dhacay 13 sano ka hor markii jaamacaddan la sameynayay oo markaa waxaa weeye 2014 aduu 14 jaamacadda marka waxay 13 sano hadda jaamacadda waxay jirtaa 25 sano marka 13 sano ayay markaa jirtay 13 ka sano marka ayaan dib u fiiriyay anoo sugaay ardadii markaasaan runaa waxa igu soo dhacay meesha ay jaamacaddu ka timid iyo saaxiibada anigu meeshan ka soo bilownay iyo meesha maanta ay marayso oo Kambala kaligeed 40 ka badan aan hadda anu la kulmaayo magaalooyin badan oo Uganda marka ay joogeen sidaas marka waxay igu soo dhacday farxadii aan dareemayay inaan u naseexayo marka ardada waxa igu soo dhacday inaan sii noolaanaynin ruux walbana maalin uu adduunyada ka tagaayo saadaradeed warka Soomaalida quruxsan la waari maysida war ka hado oo macnihiisu yahay waari mayside war wanaagsan si reeb way macnihiisu war oo dhan ma aha khaas ay igu soo dhacday marka sidaas marka run ahaan hotelka intaan saacadan sugay ardada ayaan badankeeda marka ay igu soo dhacday wakaas marka saas ay igu soo dhacday marka waa run ahaan waxay ahayd ardadaas aan ku faraxsanahay iyo meeshan ka imid iyo anoo markaas yani inaan sii dadaalo isugu naseexaynayay ayaa waxa weeye waaramaysa war ka hada sidaas ayay run ahaan ahayd marka raad wanaagsan si reeb ka rusheey waxaad qaban hana simin ru'ya been rabbi baa cadeeyo rasuulkaana qeexo saas oo kale gabay marka saas ka bilaabanayo waaye si fiican dabcan toobigada inta badan buug uu xambaarsan yahay midba mid kale ayuu ka sii jiidasho badan yahay oo dabcan waxaad moodaa in waqti badan iyo maskax badan la geliyay waxaad daawanaysaan barnaamijka doorka aqoon-yahanka ama kaalinta aqoon-yahanka oo Kalsan TV aad kala socotaan waxa idin kaga imaanay stuudiyaha telefishinka ee magaalada Muqdisho cid intii nagadaal naga soo biirtay ama aan bilowgii nala qabsanin waxa marti nooga ah Dr. Ali Sheekh oo ah gudoomiyihii hore ee jaamacadda Muqdisho dabcan qoraa kamid ah qorayaashii bandhigii gobolka Banaadir buugti ay qoreen ku soo bandhigay buug wuxuu ku soo bandhigay la yiraahdo Usahami adoon rarin oo ah buuggan dabcan waxa laga heli doonaa goobaha buugta lagu iibiyo ee gobolka Banaadir inta kalena in la geyn doona rajeynaya hadii Ilaahay yiraahdo Dr. Ali waxa jirta maanso buugga ku xusan oo waxyaabihii intii aan buug akhrinay soo jiitay kamid aha waxaan ahay nin dooro dambi weyn sameeyo dadku wada qadariyaan bal eragaas wuxuu ka mid yahay tudciyada bilowga hore kaga jira dabcan buugga hadii aan qaldanayn waxaan ahay nin dooro dambi weyn sameeyo dadku wada qadariyaan bal taas iyo dabcan fikradaas iyo sidii ay kugu soo dhacday intaad ka xasuusato waxaan kitaabkan waa ku sheegay buugga waa ku sheegay sheekadu waxay ku socotay run ahaan yani waxay ahayd nin ragii waaweynaa ee dalkan ka talin jiray oo run ahaan ayaa wuxuu u sheekeynaya nin sheeko wuxuu ahaa maartay anagoo akhyaar badan oo noo sheekeynayay marka shacbigan Soomaalida sida uu miskiin u yahay ayuu aad uga sheekeynayay oo ay murabbiyiin u yihiin marka wuxuu yiri annaga oo dilayna oo dhacayna oo xoolahooda qaadanayna wayna jecel yihiin buuri sababta waxa weeye buuri markii aan goosanno madax inaan u noqonnana wayna dooranayaan wayna sabinayaan ismana weydiiyaan buuraho inta isweydiiyaan
war maxaad ugu sameynaysaa anigu waa ninkii wax soo dilay oo dalka dumiyey idinma dhahayaan saa daraadeed run ahaan wuxuu ahaa dadkii USC da ee waaweynaaba ninkaas magaciisa hadda inaan sheego muhiim aha raggaas u ahaa wuu dhintay Allahu naxariisto oo ducaynaynaa ruuxii dhintaba saa daraadeed fiir wuxuu cabirayay dadkeena miskiinimadooda oo aniga hawshan anaa iskale marka uu duminayaa laakiin isaga wuxuu rabaa maartay marka saas loo fiiliyo wuxuu rabaa danta uu leeyahay isaga wixii markaa la quman ayuu rabaa si caadi ah inuu marka moogtahay ugu shaqaysto adiga marka waxaad u tahay xaabo dabka lagu hurinaayo ayaad adigu u tahay ee uma tihid ruux la siman oo walaalkii uma tihid taana dadkay ka arkeen oo moogtahay marka saas loo fiiriyo يعني waxaan ahay nin dooro oo dumina markuu leeyahay waa yani dadku wuxuu tusinayaa inuu dadka ka adkaaday oo ruux wax ka qaban kara hawshiisa inuu san jirin ayuu cabirayaa dariiq kasto marka uu maro ayaa wuxuu rabaa in lala maro hadduu marka uu madax noqonna waa la taageeri hadduu qabaa'ilka isku diro waa la taageeri hadduu waxba waa la taageeri waxaan u maleynayaa waa dhaqan ka soo samaysmay dictatornimada iyo kalitalinsnimadii aan soo marnay dheereed buu ka samaysmayaa oo run ahaan ku dambeysay ruux waliba ruuxa kale inuu xaabo ka dhigto oo cuntada ku karsado Allahu naxariistay waxa kelimada aad u cabiri jiray Cabdiqaadir Maxamed Mursal Ilaahu naxariisto ayaa aad u cabiri jiray war inaadeero maxaad ii dili ma dabkan maanta cuntadan ku karsan raali lahaw marka mas'aladu waa cunto karsi ma aha nin dal xukumaaya ma aha maalin walba cuntada wax ku karsado ayuu u baahan yahay ugu dambeysana kala dhashay wax cuntada lagu kariyo xaabade kala dhashay iyo ugu dambeysana xaaba ka dhiganaya markuu inta kala soo cunay maalintii safar waxa jiray aad buuga ku xustay oo aad ku tagtay 6 kamid ah wadamada Yurub dabcan xilli aad fasax haddii aan qaldan aad fasax qaadatay oo aad shaqada fasax ka qaadatay intii aad safar ku jirtay maansooyin dabcan waxyaabo ku soo jiitay xilliga oo aad la kulantay ayaad qoraal ka sameysay buuggan aad ku xustay maanso waxaa jirta safarkaasi intii aad ku jirtay waxyaabihii aad qortay ka mid ahaayo dadko maxaa la yidhaahdaa dabcan yuufuruhu kaalumin waxay ka mid tahay safarkii 6 wadan oo ka mid ah Yurub aad ku tagtay oo dabcan ka mid ah waxyaabaha buuggan aad ku xustay marka bal yuufuruhu kaalumin ma xaaladii xilligaas wadamada Yurub Soomaalidii joogtay ay maxaa la yiraahdaa ku sugnaayeen dabcan qurbuhu uu ka duwan yahay dalkii hooyo dhaqamo badan baa ka jira ma taasay ku timid mise waxyaabo kale oo dabcan intii aad socotay ku soo jiitay aragtay runahan waxay ahayd qisada yani fasax dheeron markaas aan jaamacad ka qaatay buu ahaa runahan wuxuu ahaa 6 dal oo Yurub ah ayaan marka fasaxa 3 bilood iyo ziyaado ayaan ku tagay wuxuu ahaa marxalad run ahaan aad iyo aad muhiim u ah Soomaalidu intay dhaqankii reer Yurub la qabsan kari weyday koodiina wali mayna ka tagin markaas iyagii caruurtii baa mushkil kala haysatay maxaa ilmihii ku dhashay meesha ayaa markaa 12 sano ayaa markaas ah ama dhowr iyo 10 ba maraya oo hadii laga soo qaado taban waad garan kartaa kolkii Hargeysa iyo Burco iyo la duqeynayay waxay ahayd 87 ayay ahayd dadkii waaga la qixiyay ee daa'iradaha lagu garaacay in badani marka iyagoo Yurub u sii qaxeen saa marka loo fiiriyo markaas waad garan kartaa waaba ilmihii waaba dhowr iyo 10 sano ayay markaas sii maraayeen ilmihii iyo dadkii marka ayaa laba kala ahaa reerihiina waxa weeye dhaqan xun oo la yiraahdo kala qaybsanka reerka oo lacag lagu raadinayana uu samaysmay oo separate la yiraahdo iyagoon isfurin say rumaysan yihiin ayay laba guri kala seexanayaan oo si ay u dareemaan inaysan isku meel deganeyn oo lacag loogu qaato waana run ahaan mas'ala khatar ah taban caruurtii iyo moraalkoodii iyo wixii oo dhan ay dilaysaa marka waxa ogaaday run ahaan hawl qoraal oo xataa u tagay dib baan isaga dhigay marka dalalkaas ayaan run ahaan dhowr iyo 40 muxaadar waaga ka sameeyay oo aan ku wareegi jiray muddo aad u dheer sidaasay marka ku timid yuufuruhu kaalumin waalido yuufuruhu kaalumin saasay ku timid taban
وأبد واي مركا يعني فرها وحي الشيكة وحي كوسا ما يسنتهاي waxa liibaan ku gaadhi oo caruurta furihiisa ma taqaana oo su'aalo dhowr ah ay iska daba timid laakiin furuhu wuxuu ku imaanaya aakhirka is afgaradka hooyiyo aabaha dhex yaalo anshax saxana lagu kabay akhlaaqdii islaamka iyo anshax saxana lagu kabay aabi iyo hooyana sidii ul iyo diirkeed inay isku toosan yihiin oo moogtahay ay si fiican isu haystaan sidaas ayuu ku soo baxay saadaradeed runahan wuxuu ahaa waxaan u jeedin jiray dhammaan reeraha aan la kulmay iyo muxaadaraadka aan dhigi jiray ayaan markaan la hadlo ayaan u sheegi jiray caruurta inay saa ula dhaqmaan oo ilmuhuna ay dareemaan jacaylka isjecel yihiin labadoodu ay markhaati ka gurigu inuu nabad u yahay ilmaha marka akhlaaqda islaamka iyo aabiyo hooyo isjecel iyo ilmihi oo dareemaya aabahood inay isla degan yihiin iyo hooyadii oo aysan laba kala ahayn runahan saas ku timid waxayna ahayd runahan marxalan aad raali uga hayo maqaalaad artikala badan aan ka qoray tan oo kalena ay ka dhalatay kaliya ma wax badan ba ka dhashay runahan safarkaas lana muxaadarka soo jeedinayo maansa yar inaan u raaciyo ayaa dhaqan markaas ahayd طبعا cutubyo kala duwan iyo buug ka kooban yahay cutubyada buuggan oo 208 page kuma soo wada koobi karo barnaamijkan oo dabcan waqtigiisa uu kooban yahay وبرامجك طبعا دورك aqoonyahanka ama kaalinta aqoonyahanka oo toddobaadkan aan ku falanqeynayno boogan oo uu qoray Dr. Ali Sheikh oo uu طبعا ugu magac daray usahami adoon rarin fikrado kala duwan oo طبعا loogu talagalay in wax lagu dhiso wax badan oo xilligaas taagnaa oo la soo maray si aan dib loogu macnaha aan loogu noqonin uwaana ka yahay ayaa ku xusan toddobaatan iyo kow maaso ama topic ayuu ka kooban yahay barnaamijkan wuxuu kaga imaanay studio televisionka ee magaalada Muqdisho maaso kale iyadna dabcan maasooyinka waxaan dib u soo nodgareeyay waxyaabahan isleeyahay way ku soo jiiteen oo in badan oo kamid ah bulshada is weydiiyaan ama dhalinyarada buugga aan jaaniska u helin inay helaan laakiin isla bal ugu yaraan hadii aad wax ka sii maqli lahaydeen cutubiyada ama waxyaabaha ugu muhiimsan buug ku jira yaan ugu talagalay maase kale waxa jirta dadko nabad ku seexdiyo dalkoo dawlad runa hela dadkoo dawlad runa hela degan oo barwaaqo ah dunida dabcan hadii aan tuduc qalda ama oo dunida qayb ka ah dadko nabad ku seexdiyo dalkoo dawlad runa hela degan oo barwaaqo ah oo dunida qayb ka ah bal maasadan waxa kamid ah maasooyinka buuga ku jira dabcan in bulshada la wadaago u baahan maasadan iyo xilliga kugu soo dhalatay dabcan waa dawladnimadii iyo wax dhiskii xawaa bulshada maasadan waxa runaha waxa cabiraysaa jawga guud ama bee'ada lagu jiray markaan isu geyno ayay tilmaamaysaa maxay fiiri dadka dagaalka hogaaminayay haba yaraatee wax maslaxada dalka ka community-nin warlordska magaceeda waxa la yiraahdo Mooriyaan iyo Jirri magacaal badan bay leeyihiin waqooyiga Jifti ayaa la dhijiraan maleenaya marka magacayaasha dadkaasi marxaladaas ma ayna ka talinaynin wanaag community-nin si fiican waxaan marka cabirayaa sida u dhaqmayeen waxay la dirirayeen dalku inuu nabad helo waxay la dirirayeen in caruurta yaryarka ah wax la baro oo mujaahidiintii oo la xareynay u arkeen ilmaha yararka iskuulaadkay noo diidi jireen markaan iskuulka codsano iskuulkeedii leeyahay maya iskuulkan la idinma siinaayo waxay la diriri jireen in caalamku inuu kaalmo intuu saxa keeno si cadaalad loo qaybiyay la diriri jireen waxay marka fiiri ay ka horjeedeen nolosha dadka oo dhan bay ka horjeedeen waxa jira isagu wuxuu isleeyahay hadii dalku dago laba mid uun in hadhow inta maxkamad lagu saaro ay mushkila kugu dhacdo waardiye ka hayaan taas waxay waardiye ka hayaan oo kale milyaneer qaarkood ku noqdeen oo waxay dhaxleen dekado iyo garoomo iyo waxay dhaxleen dhul iyo guryo iyo waxaas oo dhan baa la dhaxlay marka xabadii bay in badan ka faa'iideysatay saadaradeed waxaan aanu cabiraayay
runtu say tahay yaa sidaasa waxaa la anu nin walba oo qori wata wuxuu leeyahay anu dooni maayo dalkani inuu adduunka ka mid noqdo ma doonayo inuu dago darisku inuu nabad noqdo ma doonayo maxaa jira darisku hadduu nabad noqdo jaanis ma helayaan sadaradeed xaaladda aan ku jirnay baa sidaa ahayd marka fiir marka qaarkood xaaladda guud ayaad adigu tilmaamaysaa marka qaarkoodna mid gaar ah ayaa kugu dhegan oo moogtahay aad la soo kulantay tan marka waxay cabiraysaa runaan xaaladda guud ee dalku markaa ahaa oo dadka dembiyaalka waaweyn gala ee xalaashadeen wax kastoo ilaahay xarimay yay xalaashadeen wax kastoo ilaahay uu diidanaana way aqbaleen intii kalena way ka xoog badiyeen saa daraaddeed waxaan anigu yaalaha soconay dabagal sidaasay kusoo dhammaatay marka qaybihii dhexe barnaamijka doorka ama kaalinta aqoon-yahanka Kalson TV Muqdisho ayaa daawanaysaan waxaan falanqeynaynaa buug uu ciwaan uga dhigay usahami adoon rarin oo qoray Dr. Cali Sheekh Khayr Alhasiyo kaasi oo kamid ahaa dabcan hadalhayntii 24 saac ugu dambeysay Muqdisho ka socotay kuna saabsaneed bandhigii buugaagtii Banaadir Book Fair loogu magac daray ka dhacday Muqdisho دكتور أضم هاتسن مركله وحن كاجمع علنا وقت قالجها يدنا هرتي ماسوين كلا هالكن كوها طبعا كوساب سن هو يد إيه ما دام أي لفظ برتهاي وما صدق صدقان أخريا وحي أدعيسا هو يد حصوص إيو حصد إيه قدرين إيو حق هذا الدورو حال كادو مدنيا هاي أنت حوج بدن حرقون دمان تود إيذا حنبارته ما حسوسانيان حنون iyo dhibtay mari bal dabcan waxaan la soconaa in hooyadu tahay laf dhabarta ama udub dhaxaadka waxa way bulshada in badan oo kamidana aysan dareemaynin ama xaqeedii laga yaabo inaysan muuqanin inay bulshada kaalin ku dhaxleedahay in badan oo kamid ah wax ma garta baan ku tilmaamay bulshada aysan dabcan aysan garanaynin bal ma sadan markii ay kugu soo dhacaysay iyo xaaladda aad ku sugnayd waxaan xusuustaa anigoo macalinka ah jaamacad Sacuudi ku taala ayaan galaas waxaan kala doodayay arday ayaan darsi siinayay marka mid baa wuxuu yiri bulshadeena boqolkiiba 50 waa baagamuunda buuri markaas waxaan yaa baagamuunda ah markaas uu dumarka adiga dheerka badan midda inta uurka kugu haysay uurka ka soo bixisay oo inta kula ekaysiisay miyaa baagamuunda baan ku yiri marka waa carabka islaamka waa jiro ay qabaan oo fiiri dumarku hawsha hayaan looma arka inay tahay hawl u dhiganta si fiican taraga maya hawl ka culus taraga inay tahay looma haysto waxa loo haystaa inaysan waxba qabanin bulshadeena kuma sii jirto inay warshad dhan oo wax soo inta soo saaraysa inta kuma jirtaba maxaa jira caalamka dadka wax soo saara ee fikirka soo saara rag ma ugu badan rag uma badna maxaa jira ragga waxa dhalay ee soo koriya meesha soo gaarsiiya baa dumar ah haddii marka iyadoo ay intay iskaga tagto guriga ay ciidan noqoto ilmana ma dhalanayo mana korayaba saa daraadeed ayay waxay ku saabsan tahay tabanooyadu meel badan bay ku jirtaa laakiin waxaan tudayar gaarka aan run ahaan ugu sheegayo inaan xusuusiyo dadkan quruxda badan ee xooga badan ee wada xaragoonaya dhamaantood inay hooya ka dhaxadlaysa kulligood laakiin waxaynan ogeyn gabdhaha maalan da'da waaweyn oo kale wax badan maadaama aan safro dalka gudihiisa iyo banaankiisaba marka qaarkood iyadoo alaab culus wada Yurub baan aad u arkaa yaa mid ba iska agmaraya oo war maxaad u agmari markaas Suleymaan naagta ajnabiga war gaashan ba waad ag taagan tahay oo macallin bay ku tahay gabadhan alaabta la qaad waa mushkilo aad u weyn waaye damqashan jirin markaas gabadh maalan ay dhici karto inay 60 sano jirto ama ay ka weyn tahay alaab culus wada baa waxaan dhahayaa adar idib qaarkood marka inta qoslaan bale war anaaba ka weyne maxaad saa u leedahay igama weynid baan ku yiraahdaa maxaa jira adu ubax baa tahay ubaxna ma weynaado ma sha Allah ubax dhamaantii ta hadda dhalata iyo ta 90 sano jirtaba dadka iyaga ugu quruxsan maxaa jira waa ubaxii waxaan ubaxa adduunka jooga oo dhan ee quruxsan ay waxooda yihiin
سادرادد باقولكي reer Yurub إعلامka run ahaan aad bay u tashwiiheen dumarka maxaa jira arki maysid iyadoo ruux da' lagu amaanayo qurux ma arkaysid waana qalad aad u weyn inaguna tiibaan qaadanay waa ka siilada mararka qaarkood ma wax aana leh yaa aqli leh baa la yiraahdaa wax aana leh miyaa aqli leh waa aanihi dhammaan dad ku soo koray aana laanta nolol ma aha waa aanihi dad ku soo koray oo naaska hooyaa lagu waxaan rabnaa moogtahay sida Ilaahay u qadariyay gabadha in loo qadariyo gabadh oo dhan ma aha maamada Soomaalidu si qalad u fahamsay maamadu waa gabadhii dhalatay hadda ta dhalata maanta waa hooyo marka waa in hooyo ahaan loola dhaqmo laakiin waxa way inagu aad baan dumarka u xaqirnaa waana yareysanaa laakiin waxaan rumaysanahay ruuxii dumar yareysta isaga isdilay isagaana isxaqiray qiimuusan lahayn runta marka la yiraahdo saadaradeed yareysigii meeshan ka jiray markii Yurub la aaday ayaa waxa soo baxay natiijadii way soo baxday maxaa jira markaas la isku dalaayay markaas la isku furay saadaradeed waxa la rabaa rag iyo dumar in ay heshiyaan oo musaalaxo daa'imi ay jirto raguna ay ogaadaan ama Yurub ha joogeen ama America ha joogeen ama Soomaaliya ha joogeen dhalinyaradu intii way ka fiican tahay hadda yani waa isleeyahay ugu yaraan caruurta in loo qabeeyo xafaadda laga bedelo waa sameeysan mawlid oo kale way sameynayaan waan ogahay hadayna sameynina waxa way hadda inay sameeyaan baa laga rabaa yani waxa la rabaa raggu inay gabdhaha guryaha la nadiifiyaan oo waa la wada leeyahay oo caruurta dharka laga bedelo oo ilmaha loo qabeeyo oo habeenkii ilmaha la soo kaadisiyo waxa la raggu inay qayb kamid ah ay hawsha noqdaan iyo sida cuntada oo kale guriga nadaafadiisa iyo cuntadiisa oo kale markii chance loo helo marka iyadana in laga qayb qaato saadaradeed waxa waaye jikada aad baan uga sheekeeyaa maxaa jira gabadha kaliya ayaa jikada asal u ah wiilkii oo marka aan hawl kala haynin markaas uu meel iska fadhiyaa oo raaliis iska yahay na wiilka cuntada ma siisay hooyan leedahay waa dhaqan samaysmay dhaqanka marka waxa la rabaa in si xoog leh loo bedelo anu dhinacayga marka wax badan ma ka bedelay laakiin waxay la tahay meediyuhuna hayga kaalmeeyo dad badan oo daawadayaasha kamid waxa laga yaabaa inay hadalladaas inay si kale u fahmaan oo dabcan aan fahansanayn oo waxaan waa wax iska soo jireena oo waxa dabcan in badan oo kamid ah Soomaalida qalfooftooda ku sameeysan wali qaybtii hooyada aan ku guda jirnaa bandhigii buugga iyo hadal jeedinta intii ay socotay sacabkii iyo mashxaradii ugu badnayd waxay ka dhalatay markii aad goobta ka sheegtay maansadii aad ugu magac dartay qudbasiir maguurba dabcan hoolka iyo xilliga sidii uu ahaa iyo sidii dabcan looga falceliyay goobjoog baad ka ahayd tudacya buugga kama wada gaari karo laakiin labo ama hal tudac baan yaan dabcan inta ka sheegaya ama ka akhrinaya qudbasiro xala wuxuu u dhigan yahay qudbasiro xalwaariyo guur xalaala ma tahay waa su'aal xanuun badan wuxuu helay xanuun badan wuxuu helay boqolaal xaraga badan xushmo sharaf leh lagu dhalay xafiday akhlaaqda xumaan idil ka saahiday guur xalaala sugayiyo nolol xiiso badan iyo wiil xaalad wacan oo mas'uuliyo xarago oo xilka qoyska hanan kara xisaabtuna hal ay tahay xurmo waalidiin iyo aroos xiiso badan oo guurkoodu ku xasilo dabcan waa macnaha tudciyada ama maansada aad ka qortay qudbasiir maguurba aad u tira badan tahay wacyi hore u jiray Soomaalidu inta badan ay ku dhaqmi jirtay buuna ahaa in gabar nin uu dhalay oo ku soo tacbay laga yaabo 20 sano wax la soo barayay 20 sano la soo korinay korkeeda waxa waaye la saxar tiray inta la soo korkoolinay in si fudud inta maskaxda laga hada gacanta la soo qabsay in duurka la tago hadhowna la yiraahdo waxa waaye gabar baan soo guursaday waxyaabaha buugga ku xustay kamid tahay bal taas iyo dabcan wacyi gelintaas iyo sida ay kugu dhalatay جزاكم الله خير طبعا هولا بدن رنهان اي تن مرر بدن بي رنهان waxyaalo badan ma igu dhaliyay طبعا mid toos laakiin ayaa jirta oo runhaan igu dhalisay gabar yar oo hooyadeed Mooryaanti dishay oo reerkana ay is yaqaaneen ayaa
guriga shaqo laga soo siiyey marka gabadhii oon faraxsanayn maadaama hooyadeed mar hore la dilay gabadhii oon faraxsanayn ayaa marka guriga joogi jirtay marka waa dambe ayaa reerku ii sheegeen gabadhan mushkilada ku dhacday intay leeg tahay gabadhan mushkilada ku dhacday waa mushkilo aad iyo aad u weyn nimay qaraabo yihiin oo nin weyn ah ayaa wuxuu yiri maadaama hooyadana la dilay walaalahana ay dad faqri ay iska tihiin aniga wuxuu yiri hawshiina ana qabanayuri ana idin wada kaalmeynaya guri baan ku dhisayaa guri fiican baan ku dhigay marka hore ka dambana guri baan ku dhisayaa aan iskuursano طبعا gabadh iska duruufaysan bay ahayd waa yahay tiri duruufta looga faa'iideystay iyo rajanimadii iyo reer iska baabaayo moogtay balaayo weyn ku dhacday gabadhii marka waxay tiri kolkii ninkii ayaa wuxuu waxaan rabaa guurkeena inaan ka heshiinayna inaan la sheegin ma rabaa طبعا waxay tiri ilama fiicnayn laakiin haddana waan iska duruufaysnaa xogaayro lacag u siiyay laakiin waxaan is leeyahay maadaama guurba uu yahay guur xalaala dhib male sidaasaa marka aan isku nikaxsanay tir saan sugay guri in la ii dhis aniga guri la ii dhigo ugu yaraan oo aroos la dhigo saas oo kale ugu yaraan arooskiina wuxuu yiri waa uu ka warwareegay markii dambe waxay yiri hoteelada caadi ah ayaan isku qabnay tiri sidii baan ku uuraystay tiri anoo marka waxay tiri uurkii oo 3 bilood jira oo wali ilmihi adkaanin ayaan farix u sheegay bay tiri taban wuxuu yiri bay tiri ma waqti la uuraystaa la joogaa bas usbuucii dambana warqadii furitaanka iyo keenay bay tiri taban ilmihi uu soo burburay tiri marka gabadhan waxay ay la jiran tahay waa gabadh mushkilahaas ku soo dhacday marka mushkiladii bay wali sii dareemaysaa laakiin maadaama ay gurigan joogto de maamadan iyo reerka si dhaqaale ahaan guriga loo keenay oo hooyadeed bay isqaaneen reerkayga isqaaneen saasay gabadha guriga u keentayba bas marka waxay tiri sidaas ilmihi ku soo burburay saasay la jiratay saasay marka moraalkeedoo dhan uu dhulka u yaalaa taban waa tatooska laakiin tobanaan kale oo sii baqashanaana way jiraan markaan dadka qaarkii aan haddana kala sheekaystay waaban yaabayba waaba dalkan gaar ahaan magaalada muqdisho hareeraheeda way ku sii badan tahay saa daraadeed baa waxaa igu soo dhacay xanuunkaas guur ma yahay mise ma aha ani waxaan rumaysanahay guurka 2 shardi buu leeyahay shardiga koobaad waa in magaca ilaahay la isku nikaxsado shardiga labaadna waa in loo mashxarado oo la og yahay oo dadku og yihiin wiilkii iyo gabadha inay isguursadeen labada haddii mid ka mida la waayo guurkaasi haddii dabcan magaca ilaahay lagu nikaaxay waa la isku waafaqsan yahay laakiin kana anu markaan fiqiga si fiican u fiiriyay gabadh aabaheed iyo hooyadeed iyo adeeradeed iyo eedooyinkeeda qaraabadeed oo dhan guurkeeda laga qariyay iyo wiil isna reerkiisii ka qarsanaya xalaal iftiin baa la qashaa baa leeyahay si fiican ma dhici karto inuu guur nadiif noqdo si fiican waxaana rumaysanahay nikaaxaasi inuusan ansaxaynin baan rumaysanahay waxaan marka la rabaa culimaduna barnaamijka inay si uga doodo gabdhahana aan la khayaanin maxaa jira fiiri gabadho iska faqiir oo miskiina oo wax baranin guru isaga baahan tahay ilmo walba guru u baahan yahay gabadh iyo wiilba laakiin fiiri gabdhaha si dhib yar baa loo khayaanaa ugu dambaysana intuu saaxiibadiisa oo kaxayso beenbeena uu sheekh ka soo dhigto saasoo kale marka uu rasa kumaankum gabdhood baa sidaa lagu inkiray marka gabadha marka waxay sheegi kartaa marka ma laha meel cid marka taagan tahay dadka uu la yimid waa ehelkiisa ma bahaba dadkii uu ehelkiisa ma bahaba meel u tixraacdan ma haya gabadha uur la arkay uurkan muxuu yahay nin baa magacii hebel aw ninkii ma helayso haddii la soo helana wuxuu leeyahay waa beenteed buu leeyahay saadaraadad fiiri waxyaalaha run ahaan asilada iska soo daba noqonaysa waa asila badan asiladan waxaan rabaa fiqiyan run ahaan aniga markaan u fiirshay guurkaasi inuusan saxayn baan rumaysanahay aniga fiqiyan baan u rumaysanahay guurkaasi inuu saxayn culimadana waxaan dhihi lahaa ha laga doodo sababta guur loo qariyay guurka loo mashxaradayo waa in la og yahay
wiil iyo gabadh aan la isku ogeyn oo isla taagan meel haddii la arko waaba laga shakinba nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ummul mu'miniin la taagan ayaa laba wiil ansaari ag mareen markaas ay ordeen markay nabiga oo gabadh la jooga arkeen nabigu markaas u yeeray markaas innaha safiya buu dhahay waa ummul mu'miniin buu dhahay يا رسول الله ما أذيعن كتوم ينابه دهن إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدنبولي مركا هدو أعتقتان والشيطان هو صاو وسيد كل رعاية ساسان مركا أودا وين يوداي كور مركا قبل يويل أن لسكو أقول أو جوري ونسكلا جرى مركا العرقو وزين أمبار رهيا ساد راد ضحار رميسان هاي تاسي مركا كوسا ليسان هاي طبعا توعية وحاربها قبلون إن أقريان ويلشون أقريان طبعا odayaasha caruurta dhalana qayb kamida bay ka yihiin way ku jirtaa su'aalaha maxaa jira waxa dhigi karta gabadha inta loo yimid nin kuf oo fiican oo la yaqaan inuu odagu diido uu ilaa hebel u guurin maayo ama isagoo xoola ka raba ama isagoo wax kale marka gabadhu ay ka dhumatay tiraahdo khalaas yaani guur ba hadii lagu diiday waa iska guursanaysa ama wiilkiiba loo diiday inuu guursadaba oo isaguna guurkii la dhuuto marka waalidkuna inuu qayb ka yahay arinta ayaa rumaysanahay takale nikaax waxyaalaha muhiimka ah ma la og yahay gabadhani inay nin hore lahayd inaysan lahayn waa waxyaalaha muhiimka waaye cidama ku jirta ama sama ku jirto bal la soo furay ma soo furin yaa yaqaan waxa marka qaraabada taqaana yani gabadhan inay reer lahayd inaysan lahayn waxa ogaan kara ehelkeedii hadii marka ehelkii laga qariyay barina ninka rabtay iska gursan kartaa kolka dambana gabadhaasi inay fasaadee u bantay waa la dilay laano mar hadii shakhsiyadeedii la dilay bikaanimadii la dilay guurkii hore ka xumaaday ama wayba istili ama duurka iska sii gali ama iska dhoofay saadaradeed waxa weeye waa dhibaatooyinka waaweyn ee bulshada dhex yaala yani run ahaan khudbasirada marka ceeba waaweyn yay keentay ceebaha ay keentay waxa kamida dad walaalo isaqooni baa kamida hatta hadaan idhaahno guurkiiba asaxay wiilal iyo gabdho walaala oo waaweyn oo isaqoonin yaa kamida waxa kamida geeri la isugu yimid waa aqaana nin aniga aan aqaano oo ardooyinka si fiican u aqaanay oo intuu xaaskiisii ku qabay dal kale oo gabadh kale guursaday oo ka qarin jiray ay markay maqashay ninkii baa jiran ay soo safartay ninkii oo dhintay bay timid markaas xaaskii kale oo la joogay u timid laba geeriyood weeye marka waa laba geeriyood yani 8 ilmood bay u lahayd 8 ilmood bay u lahayd waa nin siyaasi ah oo baarlamaanka ku jiray 8 ilmood bay u lahayd maalintuu dhintana xaaskii kale oo la joogay u timid markaas jawgi la qabsan kari weyday gabadh oo aqla tirinaa ninkan naagtan uu qabay saa u ogow istajibatay waa laba geeriyood marka saadaradeed khudbasirada dhibaatadeedu xad ma laha waxa marka la rabaa guurkan waxa laga rabaa in lagu qaraaboobo yaa la rabaa yani hadafka weyn in lagu qaraaboobo la rabaa yani hadda midalan markaad xaas guursato reera aydan shaqo isku lahayn baad walaalo noqonaysaa dadkoo dhan iyaga ka xiga saadaradeed waa mas'alo u baahan bulshadu inay aad طبعا جورك وحيالها خريبا وحاكم إذا قبلها لا الأمانة وأخذ بس اللي قريب كم إذا هون ولا كحيسنا أيوه لما سافيسنا أيوه وجور يسوونه فوق هذا وأصح يا بينهن لكن يسوونه وحاكوجة خيانه لقلا عراية بالشدة كوجرته ساد رادد قد بصير مجور باه ماشي أسكسر سنتاي qaybihii dambe ee barnaamijka kaalinta ama doorka aqoon-yahanka Kalson TV ayaan isla soo gaarnay Dr. Ali Sheekh ayaa barnaamijka marti noogu ah book uu qoray oo ugu magac daray u sahami adoon rarin yaan toddobaadkan ku falanqeynayna Dr. Ali qaybida ma soo gaarnay dabcan bookga ma dhawo barnaamij iyo 2-5 midna lagu soo koobi karo bal inteena kale waan soo koobeynaa tudcida ku jira ama waxyaabaha wax ku qorta waxa kamid ah duwaag daris ma leeyahay adoo soo koobaya bal eraygan la yiraahdo duwaag daris ma leeyahay inta badan si bulshooyinka qaar waxay u fahmaan duwaaga markii la yiraahdo waa waraabe duwaag waxa kale isla waraabo noqon kara qof xumaaday oo isla tan hadda qudbasirada qof inta gabar waxa waaye meel cilla ah waxa way ku uuray hadana kaga tago isla duwaagii oo waraabo kaligeed ma ah bal taas adoo inoo soo koobaya runahaan safar baan ahaa taasna waa iska anigoo intaan ka soo safray Boosaasan Hargeysa u soo socday marka dariiqa marka maraynaba wiil yar ayaa intuu meel naga soo baxay buu ul dheer
sida qoriga yuu noogu soo riday yani xabad kama dhacaynin laakiin sida qorigii ayuu noogu cabsiyay wiil yar oo 10 iyo 12 iyo 13 jira ani markuu soo tiray waan istuuray baabuurkii baan isku dhex tuuray طبعا macallimiin baa ila socotay igu qoseen war doctor waxa la yiri waa maxay maxaad fulinimada ninkan waa qori ma he marka waxaan ku iri waa gu iyo laba intuu gabankani gaari meel uu wax gumaadee ka gabada hoy baan dhahay waa gu iyo laba intuu gabankani gaari meel uu wax gumaadee ka gabada hoy yani ficlan wiilkan yarka wuxuu sugayaa waqti uu qori qaadi karo wax dilu sugayaa meesha ayaa gaarsiiyey waxaa gaarsiiyey beecadii iyo aabbo iyo hooyo iyo geesin baabuur baan ku jira baabuurkan isku dhex tuuray marka meel yar kayn ahayd kaybu naga soo baxay qori ahaan buu u cabiray markaasuu saas soo yidhi marka fakti arto waxaas loo qori maya waa arkayay laakiin waxaan rabay inaan tuso khatarta ay leedahay yani waa qori run ah maxaa jira wiilkan yar hadduu haysan lahaana wuu soo ridi lahaa moogtahay aniga markaa isagoo soo riday baa madaxayga marka baabuurkan isku dhex tuuray marka macallimiinta igu qosashay saa daraaddeed baan markaa tuducaas meeshaas ka bilowday laakiin طبعا beecadii iyo jawigii iyo dagaalkii ahliga ahaa iyo istilkeeni oo dhan ayaan ku soo qaatay sida aad u aragtay run ahaan waxay tilmaamaysay dadkii oo iska noqday dugaag wax cuna oo magta in kamidihii oo badan ay ku biirtay dhurwaagii iyo dawacadii iyo libaaxii wax cuni jiray ay ku biirtay oo kuwa walaashatay iyo cadowgii de la midka ahaa ay walaashatay oo ugu dambaysi marka hilibkii iscunaya waxay kaga duwan yihiin kaliya dugaaga badana dugaagu libaax oo kale hadda mesela wuxuu wax u dilaa markuu baahdo soo baahnayn wax ma dilo abadan soo baahnayn wax ma dilaayo waxbuu cuni markuu dhargo uu seexan maalintu marka baahdo yuu soo kacaya markaas amar siinaya markaas ugaar la raadsan laakiin dadkan iscunaya ee isdilaya iyagoon baahnayn bay dadka hilibkiisa cunayaan caruurteena marka fiir waxaan ku soo tarbeynay dilka maxay la guriga dhexdiisa sheekadu ka socotaa aabihiisu wuxuu dili jiray awowgiisu wuxuu dili jiray reer hebel baa la gumaaday ilmaha waxana loogu sheekeynayaa markaa sheekada aad baan sheekooyinka u dhageysan jiray hadda 30 sano maxaa jira waxaan rabaa inaan dareemo siday dadku u fikirayaan marka ninado weyn oo mutacallima wuxuu iga sheekeynayay sidoo awowgii gees u ahaa uu ka sheekeynaya ilmahan marka sheekada dhageysanaya aan soo wado wuxuu mudili marka wuxuu yiri marka wuxuu yiri awowgay ma cabsan jirin buu dhahay markuu dagaalka ku jiro marka wuxuu isagoo dagaal ku jira oo dhiig qulqulayo oo ragii iswada gowracayo warmihii la isla dhacayo ayuu ninba wuxuu fiiriyay buu xiniyihiisu fiiriyay buu xiniyo markii la cabsado yani waxa weeye korbe aadaan way soo aruraan bini'aadamka Ilaahay uu sameeyay marka wuxuu xiniyo iska laalaada ayuu arkay buu markaasuu gabay u tiriyo geesinimadiisii marka ilmaha damqasho male meeshana laga sheekeyna waa 10 ruux oo meyd ah ayuu ninkaas ka talaabsanaya saadaraad ilmaheena waxaan u sheegno waa waxa iyo wax la mid ah saasa marka uu gabaygan oo kale runhaan uu ku yimid marka dugaagiina meesha ku soo dhamaaday waad aragtay waa meel ummadiina ay baabaaday iyagiina way baabeen iyagiina bahal ma aakhirka wada cunaa cadawgii yaa ku habsaday inta barnaamijka tudaca ama toobiga ama ciwaanka ugu dheer ee qoraalka u badan aad ka sameeyay waa midka doodwadaag طبعا فكرة aad u dheer ayuu xambaarsan yahay tuducyada طبعا bilowga ku jira waxa kamid ah dhalin iyo dhulkeedii waa dood dhax taalo dhibta taala falanqayn dhaliilaha tusaaleyn dhanka looga bixi karo ama lagu dhameyn karo yay dhiiri gelin oo in dhoruna ku dhowrtaa noo soo dhaweysaa طبعا waa toobigi doodwadaag oo kamid ah waxyaabihii ugu badnaa aad buu ku xustay balse ku timid doodwadaag muxuu xambaarsan yahay run ahaan aniga طبعا qurbo ayaan muddo dheer ku soo noolaa 20 sano aan qurbo ku soo noolaa dalka markii aan imid go'aan aan leeyahay baan ku imid 29kii baan go'aan ka qaatay dalka markaan imid waan ku dhex safri jiray magaalada ku dhex socon jiray waxaan arkayay marka dhalinyarada gaar ahaan
qaar kamid ah sidii u baraad la yihiin oo aysan u dhoolofsanayn oo aysan yani dhibtu intay la eg tahay aysan u ogeyn dhulkii oo iska dayacan oo dhammaan dadkiina ay soo dilayaan oo la wada kala qaxay oo reer la kala noqday oo hub la soo wada qaatayna waa ay muuqdaa waxa ay muuqda dhulkii oo marka dhaxal wareegaya oo cadow gudaha ah oo dabaalnimo ku dhisan cadaawad dabaalnimo iyo doqonnimo ku dhisan iyo cadow run ahoo qoriga u keenaya oo xabadda inta ruux ka dhacaysa iyo madfaca magaciisa inta lagu soo tababarelay walaalaha dil adiga dhaxlaaye dhulkii oo marka dhaxal guuraya ay muuqatay sheekadu waxay ku saabsan tahay marka dhulkii oo la war aniga dhulkan waxa iga dhaxali doona dad kale ee dhul la'aan ma noolaan dhalinyaro dhul la'aan ma noolaan baa leeyahay ma ku noolaan kartaa haddii aniga dhulkan haddii dad kale ay qaataan adiga dhul la'aan ma noolaan kartaa adiga waay su'aashu waa maya taban badda way ku jirtaa bariga uu ku jiraa waxaan marka u keenay dhalinyarada inaan ku baraarujiyo mustaqbalkan iyaga iska leh odayaashan dalka burburiyay ama askar ha ahaadeen ama ha ahaadeen shacab ha ahaadeen way iska wada dhammaadeenba hadda inta sii hadhena way iska dhammaan doonaan oo macno ma laha waxa marka mustaqbalka laga ciyaarayo waa dhalinyaradana waxay leeyihiin waa dhulkan iyaga dhulka marka saaxiib iyo walaalo ah saadaradeed run ahaan uu ka sameeyay 7 qaybood ayuu ka sameeysan yahay ama 7 chapter buu ka sameeysan yahay october ka sameeysan yahay run ahaan 360 ka badan 367 buu u dhaxeeyaa waxaan ugu talagalay dhalinyaradu inay qumaati inta u akhriso dhulka macnaha uu ku fadhiyo iyo qiimo ugu fadhiyo iyo dhulkii oo hadlaayo oo le war waxa dhacay ma ogid miya maxaad wax qaban lahayd igu soo gurman weyday iyagina in badan ba banaanka u sii qaxeen oo aysan wax maqalba inta gudaha joogtana la mashquuliyay saadaradeed waxaan tawjiihinaya dhalinyarada aad bay dabcan ugu jirtaa run ahaan tan kaliya maaha dhalintu si xoog leh ayay ugu jirtaayo maaragtay dhalinyarada himada la ku jirtaa waxaa ku jirtaa dhalinyarada wax qabsada wax barasha ku jirta yani dhalinyarada moogtahay waa laf dhabarkii ummadda waaye saadaradeed xooga ugu badan gabayga ugu badan run ahaan bay qayb muhiim ah ayay ka yihiin marka doodan waxay ku saabsan tahay dhalinta dhulkeedii waa saad u sheegtay waqtiga aad noogu kooban 30 sakin bal dardaaran fursad bad maanta haysataa malaayiin Soomaaliyeed baa shanta qaarada caalamka daawanaysa nuxurka ku jira dabcan buugan intii aan karaankeen waqtiga barnaamijku noo saamaxay waan uga faa'iideyno bulshada Soomaaliyeed bal bulshada ku daawanaysa talada maanta aad u jeedinayso ama gudaha joogto ama dibadda ha joogto adoo soo koobay 30 sakin run ahaan waxa weeye waxaan dhihi lahaa dadka akhyaarta ee sharafta leh ee dhageysanaya way ku mahadsan yihiin dadku isku fikir ma aha laakiin afkaartooda marka la isu geeyo bay xoog leeyihiin ana waxaan dhihi lahaa Soomaalida geeska Afrika ku nool waa dad walaalo ah meel kasta ay joogaan daris wanaaga ayaa number 1 ka ah dadka ay la nool yihiin ama Soomaaliha ahaadeen ama yeesan ahaanina daris wanaagaas ayaa ugu muhiimsan inay horta ogolaadaan dariska hadda waxa weeye Afariya Soomaali ba istili Orobiya Soomaali istili Soomaali ba istili waxaas macna ay leeyihiin malaha waxa la rabaa nabad in lagu noolaado oo daris wanaaga la ogolaado siyaasad marka loo yimaado waxa la rabaa siyaasad inaan la isku dilin dalka Soomaaliya oo tartanka siyaasadda oo maanta dadka ku haya qalaq weyna inay siyaasadda si sax loo maamulo waxaan u jeedin lahaa waxbarasho marka la yiraahdo aniga macallin baan ahay waxbarashaan ka shaqeeyaa caruurtaydu dalkan ay wax ku barteen banaan uma dhoofsanin hadday jiraan dad caruurtoodu banaanka u jirto oo iyaguna dalka xukuma waxaan leenahay idinkuna caruurtiina waad noo soo celin doontaan inay wax bartay laakiin dalka waxbarashadiisa hal la wada dhiso waxaan rumaysanahay haddii waxbarashada qaabkay maanta u socoto ay ku sii socoto dagaalkii ahliga ahaabaa soo noqonaya dhalinyaradu haddii waxbarashada dawladda iyo iskuulaadka iyo jaamacaadka iyo shacabka iskaalmaysanaya
haddayna jirin iskaalmaysigaasi dhallinyaradaasi dib inay hubki ugu noqon waa la hubaa saa daraaddeed waxaa la rabaa dhaqankeenna iyo waxbarashadeenna iyo diinkeennuna wuu isleeyahay ee xoogga ummadda oo midaysan waa in dowladna lagu dhiso dadkana lagu dhiso akhlaaq xumada maanta dalkan ka jirta oo run ahaan draagiska iyo mukhadaraadka xoogga badan ee dalkan maanta ka jirana waxaa la rabaa inaan u guntano 300,000 oo ilmood ugu yaraan oo iskuul maanta aadi karin yaa magaalada kaliya ku nool Soomaalida marka la yiraahdana waxaan hubaa milyan iyo ziyaado ka badan ama 2 milyan ugu yaraan oo caruurteen wax baran karin baa jirtay xoolaheena iyo caqligeena cilmigeena aan wax ku barna ayaan leenahay ma sha Allah guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka kaalinta ama doorka aqoon-yahanka oo toddobaadkan sidii aan horeba idinku sheegnay aan ku falanqeynaynay buug dabcan uu qoray mahad ka gaadhay Dr. Ali Sheikh Ahmed Abu Bakar oo ugu magac daray Usahami Adoon Rarin oo kamid ah buugagtii lagu soo bandhigay ka dhacay magaalada Muqdisho ahaana dabcan hadalhayntii ugu badnayd 24 saac ee la soo dhaafay ee gobolka Banaadir buugaas ayaan ku falanqeynaynay waa gudoomiyihii hore ee jaamacadda Muqdisho ahna xilligan gudoomiyaha hay'adda Bariga Afrika ee cilmi baarista iyo horumarinta ee loo soo gaabiyo dad dabcan stuudiyahana dabcan toddobaadkan martii inoogu ah waqtigiisa qaaliga ee noo horay doctor ma santahay